state walba oo dalka laga dhisay halkay waxay u soo doontaan inay ka qaataan khibradda, inay ka qaataan habka dowlad dhiska, shuruucaha, siyaasadaha dalka lagu maamulo. 24 sano ayay Puntland runtii waxay soo maamuleysay meel heer wanaagsanna way soo gaarto. Aan uga mahad celinayaa dadkii soo dhabar adeega ee shaqooyinka ka soo qabtay inta yar uga dambayso hay'adaha dowladda. waxaan ka xumahay jiil badan oo dhalinyaro ah cusub oo xoog aan rabno inaan anaga tawdiifino oo hawsha gelinna ah inay la jaan qaadeen xilli Soomaaliya ay wareersan tahay oo xukuumadihii kala dambeeyay ee Muqdisho ka dhismaayay iyo Amisom iyo balaayo iyo xalane iyo gaala timid iyo wax isdhex galay oo iyaga naftirkooda dalka inay wax u qabtaan aan danahooda ahayn in iyagu ka shaqeystaan u yimid ku tababartay in ay mararka qaarkood dhaqanka noocaas oo degdeg ah oo dalkeena soo galo. waa halis aan ka digayo jiilka dhalinyaradan aan uga digayo. waxa aan wadnaa anagu waxa weeye Puntland waxa ay wado waxa weeye hayaan dheer oo la rabo dadkeedana inay ku badbaadiso, Soomaaliya inay ku badbaadiso. haddii annaga aan ku fashilano Soomaaliya waxba uma qaban karno. waxaan u baahannahay mar walba maamul wanaagga iyo dowladnimo wanaagga iyo horumarku inuu noqdo wax la taaban karo dalkan ka hana qaada. waa bin aadan dadku waa la isku daydaa, laakiin waxaa mar walba ku talinayaa maadaama deganaansho iyo taariikh fog oo maamul iyo isxukun iyo mid hadda cusub oo 24 sano aan leenahay dadka wax saameeya inaan noqono dadka la saameeya inayna noqonin. taladayda koowaad waa midaas. waxaan rajaynayaa cid kasta oo ra'yigaas ka duwan ku fakaraysay inay dib u xisaabtanto caqliga la sheekaysato. waxa loo shaqeynayo oo loo ordayo waa dalkan iyo dadkan horumarkiisa. taariikhduna way qormi doontaa. 100 sano ka hor wixii dhacayaan maanta ka sheekeynayna waxa maanta aan haynana 100 sano soo socota laga sheekeyn doona. marka dadka siyaasadda ku jira waxaan kula talinayaa taariikhda iyo naga xumaanin. taariikh wanaagsan aan uga tagno bulshadeena, deegaankeena iyo dadkeenana aan uga tagno. fariinta ugu horeysa aan u dirayo hay'adaha dawladda iyo guddiga doorashooyinka waxa weeye inay u diyaar garoobaan degmooyinka haray doorashadooda. hay-adaha dawladda ay arrimahaas khusayso oo ugu muhiimsan yihiin amniga iyo arrimaha gudaha in ay diyaar garow xoog leh u sameeyaan sidii degmooyinkaas ay u hirgelin lahaayeen. guddiga doorashada waan ugu hambaleynayaa runtii in ay gaareen inay ka mid noqdaan markii la arkay inay ku guuleysteen 3 degmo oo hufan inay ka mid noqdaan korjoogtooyinka wadamada Yurub doorashooyinka dhacay. runtii sharaf weyn ayay u tahay guddigaas guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland. waa tallaabo horumar ah oo u baahan in wax laga daydo. waxaan rajaynayaa golayaashan hadda la doortana iyaguna inay heli doonaan inay tagaan oo soo arkaan khibradaha golayaasha kale ee caalamka ka jira iyo sida u shaqeeyaan oo tababarkooda uu noqon tababar gudaha maxaa yeelay inta gudaha waa intii basic ahayd, laakiin waxaan u baahannahay inay helaan tababar ay indhahooda ku soo arkaan sida ay u shaqeeyaan dawladaha hoose si ay khibrad intaan waafi ah uga soo qaataan muddo xileedka ay joogaan ay la yimaadaan howlkarnimo ka duwan kii horeeto. iyadana insha Allah inaan ka shaqeynaan rajaynayna hadii ilaahay. waxaan fariin u dirayaa dadweynaha reer Puntland bilowga dimuqraadiyaddan la mahadiyey oo runtii mararka la tartamaya xasaasiyad ayay leedahay, tartan ay leedahay, waa dabeecad meel walba ka jirta, laakiin aan dareemayo inay muddo yar uga gudubtay oo isdhexgal iyo wada shaqayn natiijooyin ka soo baxay ay abuurtay oo mar dhow aan rajaynayo in la helo 3 xisbi oo marka ay danta state-ka tahay isku aragti ka ah, marka ay tahay tartanka iyo waxqabadkana mashaariic iyo qorshayaal kala duwan la yimaado oo dadka fursad u helaan cidda ay u arkaan inay u shaqeyso xilligaas. maxaa yeelay urur walba marxalad buu ku habboon yahay aragtidiisa siyaasadeed iyo waxqabadka uu rabo inuu soo bandhigo. mid ka fiican ma jiri doono haddii ilaahay.
inaan gaarno oo la helo sida dastuurkeenna iyo nidaamkeenna xeerarkeenna sharciyadu u dhigayo in la helo xisbiyo dadkan danahooda ka shaqeeya oo iyagu ay noqdaan cidda siyaasiyan u matali doonto ayna ku wada jiraan dhammaan degmooyinka iyo gobollada iyo bulshooyinka qaybihiisa kala duwan ee deegaanka Puntland ay u dhammaystiran yihiin saddexda urur ama ha u qaybsanaadaan ama mid walba ha isugu tagaan siday u samaysan doonaan iyo jirtaan laakiin waxaan rabnaa ururadaas inay u muuqdaan ururo dhammaan deegaanada sida nidaamku uu ku yaallo urur kasta waa inuu ku leeyahay ugu yaraan 6 degmo xafiisyo iyo taageerayaal iyo sida ay ku soo baxeen hadda inay ka dhabeeyaan fariintaas aad baan u rajaynayaa bulshadu inay qayb weyn ka qaadato sidii doorashooyinkaas u hirgeli lahaayeen si nabadgelyo ah oo hufan kana fogaadaan dadka dacaayadda ku dhex wada oo rabo inaan horumarkooda laga shaqeyn waxa lagu tartamayo waa aayatiinka ummaddiina iyo dhallinyaradiina iyo mustaqbalkiina iyo taladiina inaad qayb ka yeelataan runtii khibradayda siyaasadeed ee Puntland 3 sano aan joogay iyo aragtida muddadii aan federaalka joogay soo baxaysay waxaan qanaaco ku qabaa koox yar oo iyagu iswadata inay dal iyo dad hogaamin karin waxaan u baahannahay si waasic ah tala iyo aragti siyaasadeed oo baahsan oo ku salaysan merit iyo waxqabad aan ku salaysnayn jeclaysi iyo eexaysi haddaynan taas helin waxaa halis ku jirta jiritaankeenna waxaa halis ku jirta inaan sii ahaano bulsho nool oo degaan cayiman ku nool waxaan halis ugu jirnaa dalka Soomaaliyeed inuu kala qaybsan iyo burbur uu ku dambeeyo koox awood kasta leh waad garan kartaanoo kooxihiina soo maray ayaa nooga filan kooxihii qabaa'ilka ay xoogga badnaa ee estu wada muujinayay waan garan karnaa meesha ku dambeeyeen kooxihii xoogga badnaa ee urur diimeedyada magacooda huwanaa ay u dambeeyaan al-shabaab waa u jeednaa meesha ay ku dambeeyaan kooxo kaleeto oo hadda curdina oo dhashay waxa ay qaban karaan waa malayn karnaa maxaa yeelay labadii faktor ee dadka Soomaaliyeed ugu saameynta badnaa labadiiba waa soo tijaabin ururo kooxo salkoodu qabiil yahay warlord bay isku bedeleen danahooda inay ka shaqeeyaan bay isu bedeleen inay isdhaxlaan bay isku dambeeyeen natiijadii ku dambeysayna waa ogeen kooxihii diimaha oo al-shabaab hadda u dambayso oo xukunka iyo xoolaha waan arkaynaa maanta meesha ay marayaan iyo sida ay u fakarayaan inay horumarka la dagaalamaan in cid kastoo maya tiraahda ay ka hor yimaadaan oo dilaan oo xasuuqaan waxaan hambalyo u dirayaa deegaanada runtii gartay inay cadowgaas ka qabtaan oo kacdoonka oo ka bilowdo waxaase ka digayaa kacdoon aan qorshaysnayn inuu nagu celiyo kooxihii aan soo dhaafno kaleeto marka waxaan rajaynayaa kacdoonka bulshada in dawladda Soomaaliyeed iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee deegaanadaas inay si dawladnimo ah u maamulaan oo ka faa'iideystaan kacdoonka dadweynaha iyo daroonkooda inay iska qaadaan dulliga ah oo iyagu ay hogaamiyaan oo u hogaamiyaan sida saxda ah si isbeddelka dhaca uusan u saameyn waad ogtihiin kooxihii qabaa'ilka markii ay ka saaraan oo la kiciyay ee reer ka saaraan oo meesha tagaan iyaga reerkii ay ka saareen uga darnaaday maxaa yeelay waa kooxo kacdoon lagu keenay oo aan discipline lahayn marka waan rajaynayaa nidaamka curdinka ee dawladnimada aan haysanno oo meelaha badan guulaha lagu gaaray inay ciidamada dawladda iyo dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah inay hogaamiyaan kacdoonka bulshada ayaa iyadana fariintaas iga ah si loo helo xasilooni ka duwan midda hadda aan haysanno fariintayda saddexaad waxaan u dirayaa hay-adaha iyo ururada iyo dawladaha Soomaaliya caawiya waxaa muddo badan dawladahaasi ay ku celcelin jireen dad danahooda u shaqaysanaya oo nidaam guracan ku yimid waxa aan tarayno suuragal maahan nidaam dimuqraadi oo dadka wada matala hal aado doodaas siyaasadeed 30 sano ama 20 sano u dambeysay aad bay geeyga Soomaaliyeed uga jirtay waxaan leenahay maanta
puntland waddadaasay haysaa tijaabo fiican bay haysaa diyaar bay u tahay inay arrimahaas hore usii qaado waan iniga mahad celinaynaa ilaa hadda ama saddexdii degmo hore ha noqoto ama hadda iyo diyaar garowga ha noqoto dadaal